السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada qiimaha badan ku soo dhawaada wararka ciyaaraha oo aad ka daawanaysaan Rise TV. qodobada xiisaha badan sheekooyinka ciyaaraha idinku ugu soo gudbin doona waxa ugu horeyn doona kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa markaa la rajeynayaa inay u dhaqaaqi karaan xiddig ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan. Haddaba sida la soo warinayo waxay kooxda kubadda cagta Liverpool la tilmaamaya waqtiga kan xaadirka inay suurtagal tahay u dhaqaaqista ciidanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Hakan kaasi oo markaa loo arkayo ninka waqtiga kan xaadirka ku haboon imaanshaha Stadia Anfield kadib dhaawaca Oxlade-Chamberlain. sidaas darteeda waxay kooxda kubadda cagta Liverpool ay tilmaamaysaa inay markaa u dhaqaaqi karaan ciidankaasi. dhawaanahani kooxda kubadda cagta Liverpool waxay sameynaysaa saxiix kala duwan sida xidigooda da'da yar ee Fabio Carvalho, Darwin Núñez iyo sidoo kale xidig lagu magacaabo Calvin Ramsey. waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool macallin Jurgen Klopp uu aad ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka xidigan ee ka tirsan kooxda Inter Milan ee Hakan Calhanoglu ayaana markaa la sheegayaa waqtiga kan xaadirka inuu yahay xidig calankiisu aad ugu babanayo horyaalka sirada wadankaas Talyaaniga maadaama laacibkan kooxda Inter ee Hakan uu heshiisku kula joogo kooxda Inter Milan uu kaga eg yahay 3 Juun ee sanadka 2024 kaliya waa loo maleyn karaa ayaa la leeyahay Liverpool in ay tooshka ku ifin doonto xidigaasi Hakan. geesiga hore kooxda kubadda cagta Manchester City Sergio Aguero ayaa yiri Erling Haaland wuxuu u baahan yahay waqti dheer in uu la qabsado kooxdiisa cusub ee Manchester City. arrintan ay waxay ka dambeysay kadib markii Erling Haaland uu aad ugu fashilmay kulan ciyaareedkii oo ay Manchester City markaa guuldarada kala kulantay kooxda Liverpool tartanka Community Shield oo 3-1 markaa lagu muuqaniyo kooxda kubadda cagta City. Aguero waxa uu leeyahay Erling Haaland waxa muuqanaysa inuu aad ula qabsaday horyaalka dalkaasi Germany laakiin Premier League taasi waa uu ka duwan yahay. Haaland waxa muuqanaysa in waqti dheer uu u baahan yahay in uu la qabsado wajahada horyaalka Premier League iyo kooxdiisa City. xidigani ayaa adduuncageed gaariga 50 milyan oo lacagta banka ugu soo dhaqaaqay kooxda City asagoo ka soo ambabaxay kooxda hore ee Borussia Dortmund. hadda waxa la leeyahay Haaland mar walba waxa ku programsan qorshihiisa iyo horyaalka Bundesliga wadankaasi Germany. Haaland ayaa 62 gool u suurtageliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Borussia Dortmund isagoo markaa u saftay 67 kulan. laacibkani Erling Haaland ayaana markaa isku jahwareenan qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City. Aguero wuxuu leeyahay ninkan u dhashay dalkaasi Norway Erling Haaland waxa muuqanaysay inuu kali ku yahay kubadda cagta taasi oo inta badan aysan muuqanaynin wada shaqeyn iyo isfahan xidigaha uu markaa uu ka tirsan yahay sida Manchester City. laacibkani Aguero ayaa sidoo kale hore u sheegay in Erling Haaland loo baahan yahay inuu dardargeliyo xifradiisa kubadda cagta iyo in uu saldhigto horyaalka Premier League haddii uu doonayo inuu xarakaad kala duwan uu ka sameeyo horyaalkaasi. waxaanu daawanay kulan aad u xiiso badnaa laakiin Haaland waxa laga dareemayay cilla aad u fara badan taasi oo muuqanaysay in uu fahmi waayay kubadaha ay maamulayaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Manchester City. taasi ayaan u leeyahay Haaland wali wuxuu u baahan yahay la qabsi aad u fara badan horyaalka Premier League ma ahan Bundesliga oo fursad xoog ah iska dhaxmaraysa difaacida Premier League taasi way ka adag tahay oo Haaland waxa uu mari waayay Van Dijk oo kamid ah difaacida kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Aguero ayaa 23 gool suurtageliyay horyaalka Premier League xil ciyaareedkiisii ugu horeeyay ee kooxda Manchester City markii uu soo dhaqaaqay kooxdaasi sanadii 2011 uu ka soo ambabaxay kooxdiisa hore Atletico Madrid. taasi mid la mid ah ayaa laga doonayaa ciidankaasi Erling Haaland inuu sameeyo waana mid kaliya la doonaya Haaland inuu dardargeliyo la qabsiga kooxda kubadda cagta Manchester City ee horyaalka Premier League haddii uu doonayo in kubadiisa marka horumar wanaagsan ba ay sameyso. kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa lagu wargeliyay in loo gacan gelin doono ciidaankii dhawaanba ay si weyn u doonayeen James Maddison. laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa la sheegay in guud ahaanba la iibin doono haddii ay kooxda Newcastle United diyaar u tahay inay 25 jirkan qadka dhexe ku wanaagsan ba ay markaa gacanta ku dhigaan. kaliya kooxda waxay u baahan tahay adduuncageed gaariga 60 milyan oo lacagta banka inay markaa ku fasaxaan xidigaasi James Maddison. Newcastle waa kooxda ugu dhow ee waqtiga kan xaadirka aadka loola xiriirinaya inkastoo horay ay u soo bandhigay qiimo gaaraya 35 milyan oo lacagta banka mar kale isku day ku aadan 40 milyan oo dalab ah ay markaa ka gudbiyeen laakiin hadda waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa markaa ogol inay guud ahaanba ciidankaasi ay ku fasaxaan adduun dhan 60 milyan haddii Newcastle markaa qiimahaasi ay bixisana Maddison wuxuu noqon doonaa xidig ka tirsan kooxda kubadda cagta Newcastle United. sidaas waxa laga soo xiganayaa maamulka sare ee kooxda kubadda cagta ee Leicester City.
difaaci hore kooxda kubadda cagta Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa tilmaamaya in waqtigan xaadirka loo baahan yahay in la qaboojiyo arrimaha ku aadan Cristiano Ronaldo. muddooyinkii ugu dambeeyay sheekooyinka ku aadan Cristiano Ronaldo ayay warbaahinta reer galbeedka ay si weyn u hadalhayeen inkastoo hadda la leeyahay 37 sano jirkani weli waxa la fahansan yahay inay aad u xiiseynayaan kooxaha ka qayb qaadanaya tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. marba haddii Cristiano uu aad u haminayo in uusan ka maqnaanin ka qaybgalka tartanka Champions League isagoo diyaar u ah in marka uu hareer maro tartanka Europa League oo ay ka qayb qaadanayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Rio Ferdinand waxa uu qabaa fikir ahaan in dib loo soo celiyo wada hadallada ku aadan in Cristiano Ronaldo laga dhaadhiciyo inuu ku sii sugnaado kooxda kubadda cagta ee Manchester United. inkastoo sidoo kale la leeyahay sheekadii ama kulankii ugu dambeeyay ee Erik ten Hag, Ferguson iyo xubno ka tirsan Manchester United ay Ronaldo la qaateen marka la isku mari waayay in ciyaaraanka marka lagu sii hakiyo kooxda kubadda cagta Manchester United. Ronaldo ayaa qayb ka ahaa kulan ciyaareedka saaxiibtinimo ee Manchester United ay ka hortagtay kooxda Rayo Vallecano waxaana hadda la leeyahay Erik ten Hag ayaa guud ahaanba ka niga jabay laacibkaasi Cristiano Ronaldo waxaana uu u muuqanaysa kaliya in Manchester weli ay sii xoojinayso dalabka dhinaca suuqa ay ka doonayaan. sidoo kale Rio Ferdinand wuxuu aaminsan yahay Ronaldo in uu markaa loo baahan yahay in uu niyada u dejiyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta United ka xilli la sheegayo in qaarkood digijab ay ka dareemayaan Ronaldo in xagaaganba uu ka dhaqaaqo kooxdaasi. kooxda kubadda cagta Isbariska ayaa sidoo kalena waxa ay isku dayaysaa tilaabo horumar la inay u qaadaan xidiga kooxda Ajax ee Mohamed Kudus. ciiraankani ayaa kamid ah xidigaha waqtigan xaadirka ee kooxda kubadda cagta Ajax laakiin tobaraha kooxda kubadda cagta Isbariska ayaa markaa doonaya fursad aad u wanaagsan in ay kooxdiisa u tahay haddii ay la soo wareegaan. inkastoo Tottenham ay natiijooyin kala duwan waayahanba dhinaca suuqa ay ka sameeynaysay ayaa markaan Janis xoogan u arkaan inay gacanta ku soo dhigaan xidigaasi kooxda kubadda cagta Ajax ee ka tirsan ee Mohamed Kudus maadaama uu aad u amaanay ciiraankaasi tobaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erik ten Hag waayiisi kooxda Ajax isagoo ku tilmaamay in xidigani ka soo jeeda qaaradda Afrika gaar ahaan dalka Ghana inuu yahay laacib waxtarkiisu aad u sareeyo. kooxda kubadda cagta Tottenham ilaa hadda ma aysan shaacinin qiimaha ay doonayso inay kula soo wareegaan xidigaasi Mohamed Kudus laakiin kaliya 22 jirkan ay u arkaan fursad haddii ay kooxda Isbariska u dhaqaaqi karto. laacibkani ayaa kooxda Ajax kula jira heshiis tan iyo 3 Juun ee sanadka 2025. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Joan Laporta ayaana guud ahaanba tilmaamaya in ay kooxda Barcelona natiijo xoogan u tahay inay saxiixyo kale ay sameyn doonaan isla bisha aynu ku guda jirno taasi ay markaa u muuqanaysaa inay gacantooda ka bixin doonaan cadaadiska ku aadan xidiga Frank de Jong. waxaana la sheegayaa in laacibkan u dhashay dalkaasi horan ee Frank de Jong ay markaa u muuqanayso soo dhaqaaqista horyaalka Premier League inkastoo xifaaltan adag uu ka dhaxeeyo labada kooxood ee horyaalka Premier League inta badan iswajaha ee Chelsea iyo sidoo kale Manchester United oo aad markaa u jecel 25 jirkan qadka dhexe ku wanaagsan. Erik ten Hag iyo sidoo kale Thomas Tuchel ayaana markaa u arka fursad aad u wanaagsan inay ku dagaalamaan ciiraankaasi maadaama 13 bisha Agoosto aynu ku guda jirno ay rajo wanaagsan ay leedahay Barcelona inay sidoo kale saxiixyo kala duwan ba ay sameyn doonaan iyadoo ay Barca ay markaa sameysay saxiixyo macquul ah sida Roberto Lewandowski, Rafinha iyo Jules Koundé iyo xidigaha kale ee Frankesi iyo Christensen. laakiin hadda waxa la leeyahay fursad kale ay u tahay inay bishaan markaas sameeyaan xarakaad kale ku aadan dhinaca suuqa. de Jong ayaa dhankiisa asna markaa aad u doonaya inuu ku sugnaado xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta Barcelona inkastoo cadaadis xoogan uu kala kulmayo maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona waxayna u badan tahay laacibkani inuu u soo dhaqaaqi doono sida Manchester ama Chelsea. labadaasi ayaana loo saadaalinayaa sida warbaahinada dalka Spain ba ay aad u hadalayaan. laacibka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Leicester City Yuri Tielemans ayaa dhankiisa sheegaya in uu ku biiri doono kooxda Arsenal. arrintan ay waxay ka dambeysay kadib markii Mikel Arteta uu tilaabo horumar la u qaaday natiijada ku aadan in ciiraankan u dhashay dalkaasi Belgium ee lagu soo adkeeyay qaybta qadka dhexe taasi oo ay markaa ay doonayso kooxda kubadda cagta Arsenal in ciiraankaasi uu dhaqsiya badan ee garoonka Emirates ay la imaan doonaan. walow Leicester City ay ka warqabto waayahanba hadalhayntooda in aad ugu baahday qaar kamid ah xidigaheeda sida Wesley Fofana, James Maddison iyo laacibkan Yuri Tielemans. shakhsiyan laacibkan 25 jirka ayaa go'aansanaya in guud ahaanba uu ka dhaqaaqo garoonka King Power Stadium maadaama uu ku guda jiro 12 bilood ee kooxdaasi. haddaba madaxa isboortiga kooxda kubadda cagta Leicester City ayaana cadeynaya inay muuqan karto laacibkaasi in uu ku biirayo kooxda kubadda cagta Arsenal haddii Arsenal marka aysan ku guuldareysanin qorshaha iibinta ciiraankaasi Yuri Tielemans. kooxda kubadda cagta
Chelsea ayaa markaa u muuqanaysa guud ahaan balaanshaha ku aadan xidiga Marc Cucurella ee markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Brighton. Ogow laacibkani Marc Cucurella waa ciiraan bartaameed u ahaa tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee macallin Pep Guardiola kaasi oo markaa ay doonayaan xidigani inuu yahay laacibka kaliya ee u arkeen inuu buuxin karo booska Zinchenko oo markaa ka dhaqaaqay kooxdaasi. Xilli ay markaa la sheegayeen kooxda kubadda cagta Brighton kaliya ay u baahan tahay in loo gacan geliyo adduun lacageed gaaraya 50 milyan oo lacagta banka. Laakiin Chelsea ayaa heshiis shakhsiyad ah oo rasmi ah la gashay ciiraankani Marc Cucurella kaasi oo markaa u muuqan kara in ciiraanka uu wacan doono ku biirista gigada Stamford Bridge. sida ay warbaahinta dalka Talyaaniga qaarkood ayna ay tibaaxayaanba in ay kooxda kubadda cagta Chelsea ay doonayso maalmaha fudud ugu saya inay ka afduuban doonto ciiraankani dalabkiisu aad ugu baahay kooxda kubadda cagta Manchester City ee Cucurella waxaana Chelsea ay doonaysaa in ciiraankaasi ay qaybteeda dambe ay geeyaan maadaama ay ku guuldareysteen dalabkoodii ku aadan Jules Koundé ee markaa ku biiray kooxda kubadda cagta Barcelona. kooxda kubadda cagta Salzburg ayaa guud ahaanba waxa ay ku labaaqday qiimaha ay ku fasaxi doonaan ciiraankooda Benjamin Sesko. ciiraankani da'da yar ee kooxda kubadda cagta Salzburg ayaa markaa la sheegaya in ay diyaar u tahay kooxdaasi in guud ahaanba iska fasaxaan xagaagan maadaama ay xiiseynayaan dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaaradaas Yurub kaliya. laacibkani ayaa la sheegay in garoonka uu kaga dhaqaaqi doono adduun dhan 45 milyan oo lacagta banka waxaana loo maleyn karaa inay aad u xiiseynayaan sida Tottenham iyo Manchester United walow hadda la leeyahay Manchester ayaa markaa ku soo dhawaanaysa dalabka ciiraankaasi ee Benjamin Sesko 19 jirkaani ayaana markaa la orkaanin khibradiisu aad u sareyso waana laacib natiijooyin kala duwan ee ku soo kordhin kara Stadio Old Trafford ee kooxda Manchester sidoo uu aaminsan yahay Erik ten Hag. Manchester waxay doonaysaa inay markaa bixiso adduun dhan 45 milyan oo lacagta banka maadaama kooxda Salzburg markaa ay sheegtay in waqtigan xaadirka 19 jirkaasi qiimahaasi in ka yar aysan markaa u golaan karin in garoonka markaa uu kaga dhaqaaqo. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ogolaanaysa inay bixiso qiimaha Leicester City ay doonayso inay ku iibiyaan ciiraankooda Wesley Fofana. Fofana waa da'yar ee ka ciyaaraya qaybta dambe ee difaaca mudooyinkii ugu dambeeyana waxa si weyn u xiiseynaya tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel. Fofana ayaana dhankiisa markaa sheegay in aad ugu faraxsan yahay waayihiisa kooxda kubadda cagta ee Leicester City iyo garoonka King Power Stadium. maadaama Chelsea ay aad markaa ugu baahan tahay raadinta qaar ka mid ah difaacyo wax ka ul ah ayaa markaa u arkeen 22 jirkan kooxda kubadda cagta Leicester City ee Fofana inuu yahay ninka kaliya ee mudan imaanshaha garoonka Stamford Bridge. dhowr xidiga ayaa markaa uu shaabada saaray tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel laakiin way ku guuldareysteen. hadda waxa ay ku qasbantahay kooxda kubadda cagta Chelsea inay bixiso qiimaha gaaraya 80 milyan oo lacagta banka oo markaa lagu qiimeeyo laacibkan difaaca kooxda kubadda cagta Leicester City ee Wesley Fofana. kaliya waxa la leeyahay hadii wax macquul ah ay weyso kooxda kubadda cagta Chelsea way ku qasbanaan doontaa inay bixiyaan qiimaha 80 milyan si ay u helaan 22 jirkan difaaca kooxda Leicester City ee Wesley Fofana inta uu san xirman suuq iibsiga. gudaana daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya wararka ciyaaraha waad ka daawanayseen Rise TV tan iyo wararka xiga intaynu ku kulmi doono saaxiibkina Maxamed Ibrahim Biwa ku dhaafiyo sida iyo nabad galiyo.